wartagdega daawadayaal dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday degmada masaajid Caalguduud halkaas oo fariisin ay ku lahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Weerar kadib ayaa lagu soo waramayaa in dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab ay gudaha u galeen xerada ciidanka halkaas ay ku lahaayeen haatan xerada uu ka socdo dagaal u dhaxeeya kooxda al-shabaab iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kale kooxda al-shabaab ayaa gudaha uga shaqeeya kamid ah xerada halkaas oo ay kula dagaalamayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in xoogda waxaana wili halkaas ka socda dagaal xooggan oo u dhaxeeya kooxda al-shabaab iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale ciidamo gurmud oo ka soo baxay gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu soo waramayaa inay haatan gaareen degmada masaajid Caalguduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo ay gurmudaan ugu tageen waxaana la rajeynayaa in saacadaha socda kooxda al-shabaab halkaas lagu soo afjaro dagaalka ay ka soo qaadeen kooxda dhan kale waxaa lagu soo waramayaa in dagaalyahanada xerada gudaha u galay in halkaas lagu dilay xubno tiro badan iyo taliyaashii hogaaminayay kooxda al-shabaab in al-shabaab degmada masaajid Caalguduud ee haatan weerar ku soo qaada ayaa imaanaysa kadib markii kooxda al-shabaab dhawaan laga saaray degmada masaajid Caalguduud halkaas oo u ahayd fariisinta kooxda al-shabaab ee ka soo awaabulaan weerarada qaraxyada ay ku qaadaan xerooyinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale weerarka al-shabaab ayaa imaanaya kadib markii madaxweynaha Soomaaliya shalay uu fariimaha hore dagaalka uu dib ugu laabtay isagoona degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe uu halkaas kulan kula qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka dadka deegaanka halkaas fariisimaha ku leh isagoona ciidanka dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga Soomaaliyeed ku dhiirigeliyay madaxweynaha in dagaalka dhanka kooxda al-shabaab loo istaago lana dardargeliyo sidii horena si xoog badan dagaalka kooxda al-shabaab loo galo si dalka loogu xoreeyo guud ahaanba kooxda al-shabaab si kastaba al-shabaab ayaa loogu bartay in weerar gaadmaha ay ku soo qaadaan xerooyinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose dhawaan ayay markii dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab weerar qarax ay ku bilowday sidoo kale ay ku soo qaadeen awdheegli halkaas oo fariisin ay ku lahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taasoo ugu dambeyn kooxda al-shabaab u suurta gashay in gacan ku haynta degmada awdheegli ee gobolka Shabeellaha Dhexe ay la wareegaan sidoo kale weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose ayaa imaanaysa kadib markii bishan Ramadaan al-shabaab ay xoojiyeen weerarada ay ku qaadaan fariisimaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose guud ahaanba Soomaaliya waxaa ka socda dagaalka dhinaca kooxda al-shabaab kaasoo la rajeynayo in bilaha soo socda kooxda al-shabaab guud ahaanba Soomaaliya laga saaro lagana sifeeyo iyagoo la rajeynayo in la isku geeyo koonfurta Soomaaliya haddii aad nala soo gaarto waxaa ka codsan inaad subscribe dhahay channelka siina sheegris like-na dhahdid si aan u helno saaxiibo kale adigoo kale u wanaagsan qaybta hoose comment aragtida nagula wadaag si ay u aragtaa in kooxda al-shabaab saacada la taagan yahay weerar gaadmaha ku soo qaadaan degmada masaajid Caalguduud halkaas oo dhawaan kooxda al-shabaab laga saaray